بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن داوداشي إذا قيمها إيه قايلة مل بديك داونيسان ويوتيوب ينال كأمين معلن كسو دوادا مقالك كني محاربنا ماتي إن وجهدنا استعمالك برها برشدة على دليل تيك توك أو أيضا كانوا كسوبتين إن أو استعمالان قاب قلدن haddaba waxaad isweydiisaa gabaray maxaa kugu kalifay in aad soo bandhigto jirkaaga oo qaawan in aad bulshada dhexdeeda aad la soo istaagto haddaba waxaan jeclaystay mawduucan inaan idinla wadaago waxaan aad uga xumahay oo aan aad iyo aad uga sii xumahay gabar muslimad ah gabar Soomaaliyeed oo walaashay ah in aad xubnaha jirkaaga aad ku soo bandhigto baraha bulshada adigoo wax ciyaar la moodo ciyaar saan ahayn ka dhiganaya ciyaar waxa ay dhalinyarada talent u yaqaanaan oo ah qofka hibada uu leeyahay in uu soo bandhigo in horaadadaada aad talent ka dhigato kuma noqonayso talent haddaba gabadha walaashay waxaan u sheegayaa ee isticmaala gabdhaha walaalaha ee isticmaala baraha bulshada qaasadan aalada la yiraahdo TikTok inta iska soo duubo muuqaalo taasi ma ahan qurux ma ahan horumar ma ahan sharaf mana ahan qiimo ogsoono sharafta iyo quruxda iyo qiimaha waxa haysata gabadha asturan ogsoono kalsoonida iyo wanaaga waxa gaara gabadha asturan waxaan dhihi karnaa gabdhaha isqaawinaya ee aalada TikTok ku soo bandhigay jirkooda iyagoo qaawan oo ciyaaray intay music shitaan waxa haysa kalsooni xumo waxa haysa kalsooni darro ku abuuran qalbigooda maxaa yeelay xijaabka kan marada tan ee jirkaaga asturaysa qofkii aan kugu jeclaanaynin kuguma jeclaanay qaawnaasha walaashayda qiimaha iyo qaayaha leh taas ogow haddaba ogow gabarba gabadhay ka asturantaa way ka kalsooni badan tahay taas ayaa xaqiiqo ah waxaan aad uga xumahay in dhaqankeenii lagu xadgudbay islaamnimo ee asturnaanta ahay bal eeg gabadha iyadoo qaawan iska soo duubaysa muuqaal ma awoodo iyadoo garbasaar la'aan gurigooda markay joogto ay biyaha wasaqda banaanka ku saarayso weelasha ay ka soo dhaqadeen ma awoodo iyadoo garbasaar la'aan inay banaanka istaagto sabab intaasoo kun oo qof baa ku daawanaysa kaaga darana waxay ku xisaabtamayaan laak waxa la dhaho iyo loof walaak iyo loof lahaanina maxaad ka helaysaa laagan iyo loofkana ku qafiifteen 1 milyan oo loof haddii aad hesho oo la jeclaado qaabkaad wax u soo bandhigtay muxuu kuu soo kordhinayaa isweydii halkaas milyan ee qof ee aad qaab daradaada iyo dhaqanka xun aad la soo hor istaagtay ilaahu 10,000 oo milyan oo qof hel maxaa faa'iido waa marka su'aasha isweydiinta mudan dhaqankii Soomaalinimaad meel uga dhacday sharaftii gabarnimaad meel uga dhacday adigoo qaarkaaga sar lulaya aad baraha bulshada soo dhex istaagaysaa taas ma wanaag baa حرام عليك أختي حرام عليك أختي والله ووح لغو حماضو وان جعلت موضوعا إن المرر بدن كسو هدلا وحاسب جعلت بلينا نكادي لكن وان أوذي كروا إنان كآمسو رنهانتي وحا أيان دراء oo ayaan daraka siiweena gabdhaheeni inay ilbaxnimo moodeen in ay TikTok iska soo duwaan muuqaal ayagoo jirkooda lululaya waxa ka faa'iideysan ninka TikTok sameeyay jirkiisa qaawan soo ma bandhigee geedo la qoray ee u baaquli iyo qaanda iyo kaba ka sameynayo ayuu TikTok ku soo bandhigaa dib u fiiriya dadka Shiinayska dib u fiiriya maxay sameeyaan maanta dhan waxay soo bandhigaan alwaax la sameynayo kab laga sameynayo baaquli laga qorayo qaada laga sameynayo garaafo biyo lagu shubto laga sameynayo bay soo bandhigaan iyagoo dadkooda caawinaya soo bandhigaan annaguna gabdhaheena maxay soo bandhigaan xubnaha jirkooda
oo qaawan oo aan garbasaar qabin oo aan xijaab qabin in ay tiktoka la soo istaagaan. waxaan arkay gabdho tiktoka ku dhex mayranaya saabuun iyo biyo intay soo qaateen. war ilaahay ka cabsada. 2 mitir ayaa ku sugaysa walaashayda qiimaha badan. wallaahi alcadiim maanta maalinaan ahayn ee aan tiktokna lagaa daawanaynin yacni qofkii asxaan kuu sameeyan oo ku dhahay hiblaayo allah u naxariisto ayaa imaanaysa. maxaa ku hadlaysaa maalintaas? allihii ku abuurtay ee addoonnimada kugu abuurtay maxaa la hor istaagaysaa? jirkaaga qari ee astur gabadha muslimada ah allah subxaana watacaala ku dhahay. adigana maxaa samaysay? adduun weynihii oo dhan ayaa ku daawanaya jirkaagii oo qaawan. waxaan muusiga la yirahdo adoo iska ku cayaaraya 2 gabdhood isla cayaarayso. soomaali haddii aan nahay waxaa allah subxaana watacaala ka baryaynaa aaladan tiktoka gebi ahaanteedba in hawada ilaahay uu ka bixiyo. maxaa yeelay waxaa batay fasahaadkeedii, waxaa batay dhaqan xumadeedii, waxaa badatay gabdhihii qaabka ee tiktoka u isticmaalayeen inay tahay qaab qaldan laakiin ilbaxnimo ay arkaan. waxaa lagu leeyahay challenge ayaa la samey. maxay tahay challenge-ga? war qofkan wuxuu kugu soo xujeystay isagoo baaquli qori ka sameynaya ka sameey qurac iyo qansax iyo meegaad iyo geedo badan ilaahay wuu noo abuuray subxaana watacaala ee farsamo la imo. laakiin garbahaaga iyo jirkaaga adoo lululaya billahi calayka tiktok ha soo dhex istaagin. sharafta iyo dadnimada ha ku cayaarin. waxaan u sheegayaa gabar kasta oo soomaaliyeed ee muuqaalkani daawanaysa walaasheedii haddee kugu jirto fikrad ah inaad tiktok soo bandhigtid adoo garbasaarkii halkaas dhigtay ee ciyaaraya ee jaasaya waxaad ka gudubtay xadkii ku yaalay allah subxaana watacaala marka hore kuugu talagala. qofka islaamka waa inuu is asturaa, jirkiisa waa inuu qariyaa. taas ayaa marka hore ku gudubtay. tan labaad dhaqankii bulshadeena soomaalida u yaqaanay gabdhaha xishoodkii qiimaha lagu yaqaanana waad ka gudubtay. tan saddexaada kusoo hartay sharaftaadii gabarnimo iyo sumcadaadina waa dishay. adiga ayaa qawracay. waa wax laga xumaado. muuqaalkani ilaa in intee la-eg buu kusii jirayaa. haddii beri aad guursatid kaba soo qaad wiil wadaada oo maasha allah ayaad guursatay ama ilaahay subxaana watacaala ayaa kusoo hadeeyey. muuqaalkii qaabka darnaa ee foosha xumaana waa la wareejinaya baraha bulshada. maxaad istafiiday? walaalkaa lama sheekaysan kara asaagiisa. aabbaha lama xisaabtami karo odayaasha ficiisa. maxaa yeelay intaba adaa ku tuntay. waxaan u sheegayaa gabdhaha walaalaheeya dib isugu laabta. dhaqanka aad maanta sameynaysaan dib ugu laabo. bal xisaabtan oo fikir 1 milyan oo laak iyo loofaaba heshaba kasoo qaad. maxaa kuu soo kordhay? aaminadaadii ahayd kaan bedelayo, xaliimadaadii ahayd kaan bedelayo, sahradaadii ahayd kaan bedelayo oo zaynaba kaama dhigaayo, safiya haddaa ahayd kaan bedelayo oo sahra kaama dhigaayo. sidaada unbaa tahay. wax aan dembi ahayn iyo dhaqan xumo aad bulshada kusoo kordhisay iyo sharaf dhac aad ummadeena u keentay aad samaysay ma jiraan. waxaan ka codsanayaa bulshadeena qiimaha iyo qaayaha leh dadka wanaaga ku jooga baraha bulshada dhexdooda ah in ay soo bandhigaan fikirkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin isticmaalka aalada tiktoka ee gabdhaheena ku waasheen. war aroos haddii aad tagto markii lagu casuumo oo meel laga casuumo waa inaad si sharaf iyo edab ah ku tagtaa. saa mobil unbaa lala wareegaya. waxaad arkaysaa ishak maxaa tirahdaa waa sawir unbaa la iska qaadaa 12 maanta asaga isku mashquulsanba qofkii. maxaa laakiin billahi calayki maxaa lagu casuumay inaad arooskan kasoo qayb gasho ama xafladan aad timaado adiga unbaa mashquulsan 12 maanta. seminar baad tegaysaa iyagii waa dhalinyarada isku mashquulsan. aqoon iswadaarsan ka qayb kala maal dhaweeto maxaa dhacay? dhalinyaradii gabdhihii makeup baa horta la iska soo buuxiyo. yaa waduud yaa allah yaa waduud make-upkii markii la iska soo buuxiyey meeshaa la imaaday. war aqoon iswadaarsi meesha loo imaaday. fikradaada inaad soo bandhigtidaa loo imaaday. dan maxaa dhacay? mid walba sawira la taaganta dhac wash ha qoorta sidaan yaqayo intuu nooga imaaday dhaqankan aan dib isku baarno. walaalayaalow aan dib isku baarno, aan dib isku eegno. sida tani ma ahan si la fiirsan kara iyo si loo dulqaadan kara toona.
xafladaad tegaysaa meel shir unbaa tegaysaa ay bulshada ku kulmayaan waa la wada mashquulsan yahay maxaad u timid in fikirkaaga lagaa faa'iido adna aad wax faa'iido shaqadii oo dhan waqtigii qiimaha lahaa ee qofka bini aadanka raba inuu ku xisaabtamo haddee waxbarasho tahay haddee wax aqrin tahay haddee wax dib u fiirinta haddee wax la raadin ee tahay intaba waxaa qaatay wax la yidhaha tiktok war tiktokow yaan kaaga dacwoonaa tiktokow xaggee nooga timid ma in dhaqankeenii aad tirtirtaa laguu soo diray tiktok ani waaba yaabanahay dib u fiiriya ummadaha kale ee tiktokyada isticmaala waxaa arkaysaa baaf baastaani mid kala fadhiya oo cunto cunis challenge kusoo bandhigay kaasaa la qaatabo walaalayaal ka waantooba dhaqan xumadan aad kusoo kordhiseen ee dhaqankeena ma ahan wax fiican ma ahan wax loo dul qaadan karo dadka bulshada u ah hormuudka sida culimada dadka aqoon-yahanada waxaan ka codsanayaa ayagana in ay kasoo hadlaan mawduucan tiktok iyo qaabka dadka u isticmaalayaan siiba gabdhaha kusoo bandhigay jirkoodii oo si kaleeta ah marka waxaan idin leeyahay walaalahay qiimaha iyo qaayaalo aan ka weynaano aan ka gudubno qaabka maanta ee bulshadeena wax ku wada maahan qaab qurux badan ma ahan wax horumar lagu gaarayo waa wax cuquubo min allahi nooga imaada ee nagu dhici karto يعني waxyaabaha la sameeyo ah wax diinta iyo dhaqanka ka fog intaba bulsho ahaanna aysan u wanaagsaneyn in ay ilmihii yararka ku fakaraan ayagana waxa dhalinyarada maanta ay sameynayaan waxa idin leeyahay walaalayaasheeda qiimaha iyo qaayaha lahow aanu istaagno bulshadeena wixii ka qaldan inaan wax u sheegno ma aan inaan ka aamusna ama aan daawana waxa arkaysa dad dhahay keep going hore u sii soco war gabar baa ku dhalatay gabar baa ku dhaxda gabar baad dhashay ma ahan tu qalad sameynaysa inaad ku taageertid qaladkeeda marka waxaan leeyahay walaalahay qiimaha iyo qaayaalo u sheeg walaasha in adeerta in abtida haddii ay qalad ku socoto waxtan inay yihiin wax beri ka maalin dhibaato u keeni kara ama shallaay ay ka istaagi doonto iyadoo meel ay kasoo noqoto aysan lahayn sidaasi daraadeed waxaa idin leeyahay walaalayaal intaan mawduuc midkaan lamida ku kulmi doona haddii ilaahay idmo وولاشين آمنوا مع عبد الله أو إذا لسيدا سيون نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.